Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan ahay oday qowraha iskool Buluusiya degan. Waxaan arkay xalay qabriga Ajakis oo iftiin ka baxayo. Guriga markaan aaday cabaar waan seexan waayey. Markaan yara gamay waxaa la ii tusay riyo ah Ajakis inuu barwaaqo ku jiro meel beera ah oo doog ah uu ku dhex qoslayo. inaan dhimanayo waa ku faraxsanahay wallaahi anoo quslaayo dhimanaa anoo quslaayo waa oday ka mid ah dadka degan xaafadda iskool Buluusiya degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Waxa uu arkay qabriga Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo iftiimaya sida uu inoo sheegay riyo lagu tusiyay habeennimadii xalay ahayd. Ajakis oo meel doog ah oo barwaaqo ah ku dhex qoslaya waa mid ka mid ah mucjisooyinka rabbaaniga ah. Saaxiibayaal, haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo, magaalada Muqdisho shalay waxaa lagu aasay Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Haddaba mid ka mid ah dadka degan xaafadda iskool Buluusiya ayaa Xamar Cadda TV la soo xiriiray isagoo markaasi ka muuqato tiiraayo iyo weliba qiirada uu ka dhaxlay geerida ku timid Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis. Waxa uu sheegay odaygana in uu arkay habeennimadii xalay ahayd qabriga Allah u naxariistay Ajakis oo aad u iftiimaya. Kadib waxa uu soo aaday gurigiisa. Waxa uu sheegay inuu seexan waayey cabaar kadibna hurdadii markii ay ka timid riyo lagu tusiyay Ajakis oo meel barwaaqo ah oo weliba doog ah ku dhex qoslaya. Waa mid ka mid ah riyooyinkii iyo hamigii uu ku duceysan jiray Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis. Saaxiibayaal, marka hore aynu wada dhageysano odaygan ka mid ah dadka degan xaafadda iskool Buluusiya waxa uu ka sheekeynayo iyo waxa uu ku arkay qabriga Allah u naxariistay Ajakis. Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan ahay oday qowraha iskool Buluusiya degan. Runtii dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan arkay xalay qabriga Ajakis oo iftiin ka baxayo. Guriga markaan aaday cabaar waan seexan waayey. Markaan yara gamay waxaa la ii tusay riyo ah Ajakis inuu barwaaqo ku jiro meel beera ah oo doog ah uu ku dhex qoslayo. Markaan damcay inaan salaamo waan dhaho Ajakis sidee tahay, hurdada ayaan ka toosay. Waana riyadii igu fiicneed oo aan ku riyoodo. Alle jannada ha inagu kulmiyo. Wuxuu ahaa shaqsi fiican. Wuxuu ahaa shaqsi runtii iska afgaaban. Maanta haddaan dhaho Ajakis dabiicadiisaan ka sheekeynaa waqti ay qaadanaysaa. Ani asiga waxaa isbaranay beri samaadkii. Runtii waxay ii tahay dareen gaar ah ii tahay. Marka Ilaahay uu qabrigiisa waasiciyo. Ilaahay u naxariiso. Ilaahay jannadii firdawsa geli. Ilaahay adoonkaaga u naxariiso. Kulley calaamaadka ahlu jannadu way ka muuqatay. Ilaahay jannada beeraheeda ku waraabi. Saaxiibayaal, waa daawateena. Haddaba Baabajey weliba Axmed Saadiq Yacko ayaa iyaga qudhoodu waxa ay ka sheekeynayaan markii ay gudaha u galeen qolkii lagu dhaqayay meydka Allah u naxariistay Ajakis waxa ay ku arkeen iyo sida markaasi ayaga qudhooduba ay uga maseereen. Ileen qof waliba waxa uu jeclaan lahaa in qaatimo wanaagsan uu ku dhinto sida Ajakis oo kale. Haddaba Baabajey weliba Yacko ayaa waxa ay ka sheekeeyeen kadib markii loo oggolaaday in ay gudaha u galaan qolka meydka lagu dhaqayay ayaa waxa ay indhahooda ku arkeen qayb ka mid ah jirkii Ajakis oo weli aan isbedelin, asigoo muusoonaya ama dhoola cadeynaya waxaad u taqaanaanba. Haddaba Allah u naxariistay Ajakis ayaa hadda kahor isaga oo nool waxaa baraha bulshada lagu faafiyay Ajakis inuu geeriyooday. Kadib muuqaal ayuu soo duubay waxa uu ku sheegay in alla dilo uu dhimanayo maalinta ay tiisa timaadana uu dunida kaga tagi doono isagoo aad u dhoola cadeynaya oo qoslaya oo faraxsan. Waxa uu sheegay Ajakis xilligaasi in dunida dusheeda aan waxba lagu qabanaynin, wax yaalana aanan jirinba. Ilaa naf waliba geeridu waa ay dhadhaminaysaa. Kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamah. Haddaba
riyooyinkii iyo ducooyinkii uu ku duceysan jiray yaa alla u aqbalay cabdi muriidi dheer Ajakis. Babaje waxa uu leeyahay markii meydkii la dhaqayay ayaa arkay Ajakis oo dhoola cadeynaya. Yacko ayaan taabtay. Yacko waxaan ku yiri, Yacko, dadkan shakhsiga ay dhaqayaan waaba qof noole, Allah u naxariistee. Ajakis ayaan alla uga baryaynaa inuu geliyo rawdatu min riyaadil janna. Haddaba aynu wada daawano sida ay Babaje iyo Yacko uga sheekeynayaan waxa ay ku arkeen qolkii ay gudaha u galeen oo meydka lagu dhaqayay. inaan dhimanayo waa ku faraxsanahay wallaahi anoo quslaya dhimana anoo quslayo dadka waxaan ka mid nahay aniga adiga ee Ciraaq oo ugu galay markii la dhaqaayay runtii aniga markii aan fiiriyay adan ku qabtay waxaan dhahay ninka biyaha ku shubaya ma dhimanina fiiribal ana haneedkii iqaabka u xuqdo badnaay ma Allah anina qoslayan buu malinaay wallaahi anoo quslaya dhimana anina qoslayan buu malinaay wallaahi anoo quslaya aminsanahay inaan dhimanayo waa ku faraxsanahay maalinkeyga haddii li imaado wallaahi anoo quslaya dhimana anoo quslayo adduunka maxaa laga qaadaa dhibka yaalo rafaadka yaalo silaca yaalo dulmiga yaalo amba ka neebsahab alxamdulillaah qof walba waa dhimanaa geeridu waa dhaminaa bartalaw naxariisto walaalkeen Ajakis Yacko amiin ya rabbi amiin dadka waxaan ka mid nahay aniga adiga ee Ciraaq oo ugu galay markii la dhaqaayay waliba shucuurta markii laga dejinayay aan la ogolaaday inaan gudaha galno soo fiirino runtii aniga markii aan fiiriyay adan ku qabtay waxaan dhahay ninka biyaha ku shubaya ma dhimanina fiiribal ana haneedkii iqaabka u xuqdo badnaay ma Allah anina qoslayan buu malinaay wallaahi Allah u naxariisto walaalkeena waa naga tagay ala kulli xal waa naga tagay sabr iman Allah naga siiyo amiin 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 hadalkaan si badin qayb qaato يا بابجي إلا أنت تقنع Ajakis ما عددنا ولا حسابا وإحنا سوكوبي كرما انتي للسقاي حمر وين نوا بحسنتي اسبتالك محل لا يدخل مقعيس دلدميري وعكس دوالنا دلدميري وابو عسمي دتك جدك صوص سعدين إلا بعدنا وابو عسمي مركز دتكي أسيقا أو إلهي معروف ديس كديقا واي meedkiisa oo macnaa calaf ugu dari qofka maalinta la bixinayo dadkiisa oo helaa marka dadkiisa waaye ilaa ugu daaqay qofkii ay raacday meedkiisa ama janaasadiisa 40 qof wax ka badan dadka waxay dhahan inta badan ahlu raxmo waaye laakiin dadka aan anaga aragnay maanta misaadka jaamacadda uu buuxsamay isbitaalka Daldameer waa uu buuxsamay haddana qabuuraha u jeedin meel istaaga malahan wili bajidka la soo socda wili sideen dadka u kala maamuleeni ani xataa food cadda ee baabuurka waa iga buuxsamay bajaajan dad soo saarni haddana wakiilan u sii dhiibiyaan dhayniyo soo saar ani waa ka daay qabuuraha waa ka daay ana wakiil u sii dhiibi oo dadka baabuur macnaa bajaaj soo saaro iyo homeeyalka aad Ilaahay u naxariisto qof kasta oo nool oo dhimanaya انت جيفت هذا صوتوستو او كسو غار الله اكبر صاحب يا الحمر عاده تيفا aad naga daawanayseen subscribe inoo saara like iyo share naga ilaawina wixii taliyo tusaale qaybta comment inoogu reeb waan idin akhrin doonaa waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji ducood leh muuqaalkan kiisa intaan ku kulmi doono anagoo isku duwan waxaan idin kaga tageynaa sidaas nabadgelyo